bismillaah daawadayaal kusoo dhawaada. Waxaan idinla wadaagaynaa maantay 8 wax oo aad u baahan tahay in naftaada aad ku qariso cidna aadan la wadaagin intaad nooshahay. Number 1, dadka kale waxyaabaha ay kuu sheegaan ama secretka iyo ceebaha aad ku ogtahay ha isku dayin inta aad nooshahay inaad cid kale la wadaagtid. Waxaan ognahay xamashada iyo dad wax ka sheega in naftaada iyo weliba adiga qudhaada ay ku soo kordhinayso sumcad darro. Even dhanka diinta islaamka waa wax aad u fool xun. Ballaarinta amaba sheegidda dadka kale ceebahooda waxay si toos ah u sheegaysaa inaad tahay adigu qof aan isku kalsoonayn. Haddaba isku day intaad nooshahay in qofka kale ee walaalka ah amaba ehelka ama asxaabta ah waxa kugu qarsado aad ka dhigto mid qarsoodi ah. 2, weligaa ha ka hadlin cidna ha la wadaagin dhaqaalahaada inta uu la egyahay, gaariyaashaada inta ay la egyihiin, guryaha aad magaalada ku leedahay, ilmaha adiga aad dhashay, lacagaha dhaqaale ee bangiga kuugu jiro, waxaad soo qabatay iyo awooddaada intay la eg tahay cid ay qusaysa ma lahan. taasoo idil adi ayay ku anfacaysaa. Marka waxaad isku daydaa intaad nooshahay inaadan la wadaagin amaba aadan ku faanin hantida Allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey. Haddaba waxaa jiro dad fara badan oo aan fursadaas helin amaba aana xataa heli karin waxay cunaan. Marka aad dadka isku daydo inaad caawiso ayaa waxa ay noqonaysaa mid aad u wanaagsan. Hase yeeshee isku day weligaa inaadan noloshaada ka hadlin amaba aadan ku faanin dhaqaalaha la ku siiyey. 3, mishaarka adiga aad qaadato. Haddaba mishaarka aad qaadato waa wax sir ah, waa wax aan markaasi loo baahnayn in qof kale oo bini'aadan uu ogaado. Waayo waxaa jira dad fara badan oo adiga kula shaqeeyo oo kaa hooseeyo, waxaa jira dad fara badan oo adiga kaa sarreeyo, waxaa jira dad noloshoodu ay low level xataa aan heli karin cunto. Hase yeeshee waxaa loo baahan yahay markasto mishaarkaada intaad nooshahay inaadan cid bini'aadan ah la wadaagin, laakiin aad caawiso wixii aad awoodo. Qodobka 4, goolka amaba hadafka aad mustaqbalka ka leedahay waa mid adiga kuu gaar ah. Dad badan ayaa waxa ay sameeyaan inay la wadaagaan qorshaha ay damacsan yihiin amaba guulaha ay rabaan inay gaaraan mustaqbalka, taas oo ka dhigayso in maskaxdaadaba ay already gaarta go'aan ah inaad guushi gaartay. taas waxay suuro gelinaysaa in aad ka gaabiso gaaridii hadafkii aad lahayd inaad gaarto. Haddaba mar walba ha isku dayin in aad hadafka mustaqbalka cid la wadaagto ilaa aad dhammayso. 5, weligaa ha isku dayin amaba ha ka hadlin waxa wanaagsan ee aad dadka u qabato. Waxaan ognahay waxaa jiro xilliga aan social media imiga ku jirno dad fara badan oo wax bixiyo oo sadaqaysto, hase yeeshee isku sawiro fiidiyoyaasha ama kaamirada isla mar ahaantaana soo dhigo social media. Haddaba sadaqadu waxay ku qurxoon tahay markii aan la ogaan cidna aysan ogaanin. Qodobka 6, dadna ha kala sheekaysan, hana u soo bandhigin adiga waxaad aaminsan tahay iyo waxaad jeceshahay. Waayo qodobadaasi waa kuwa adiga qaas ku ah. Ma xumo qofka inuu dadka la wadaago waxyaabaha uu jecel yahay amaba uu rumaysan yahay, hase yeeshee inaad zaa'id ka dhigtid waxa ay noqonaysaa mid ka badbadisa. Waayo qof walba waxa uu leeyahay wax isaga gaar u ah oo uu ka guuxayo inuu dadka la wadaago. Hase yeeshee ha isku dayin markasto inaad dadka u soo bandhigto waxyaabaha aad adigu jeceshahay ee la rabo in la qabto. Qodobka 7, dadka ha la wadeegin hana ha tusin adiga sida geesinimadaada inta ay la eg tahay. Haddaba geesiga rasmiga ahi ma sheego geesinimadiisa. Waxaa tusaale kuugu filan filimaanta markaad daawanayso hiirowga dadka la dhaho geesiyaasha waxay xirtaan indhaha ayay iska xiraan oo maaska ayay xirtaan si ay identitygooda ama aqoonsigooda aan loo garan. Muhiimadoodana ma ahan in magacooda la barto ee waa in goolkooda iyo mowqifka ay meesha u tageen ay waxeeyaan. Haddaba geesiga dhabta ah ma ahan inaad adiga is sheegto amaba is ammaanto ee waa midda dadka ay ku gartaan. Qodobka 8 waa arrimaha ku saabsan qoyskaada.
arrimaha qoyska waa arrimo secreta amaba loo baahan yahay si gooni ah in loo xalliyo. Looma baahno inaad la wadaagto qof kasta oo markaasi adiga aad aragto, sababtoo ah arrintaas waxay sii kordhinaysaa oo keliya in arrintii ay sii xumaato, laakiin marnababa xal uma helaysid. Isku day markasto in aad arrimahaasi kala sheekaysato amaba kala xidhiidho dadka qaraabada dhow ah oo aad u aragto arrimahaas inay xallin karaan. asxaabta, amaana allah ayaan idin leenahay. Subscribe-kana waa dhankiina. Waa saaxiibkiin Ismaaciil Arax oo idin leh nabadgelyo.